Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kulan wada tashi ah la qaatay xildhibaanada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kala hadlay dhamaystirka xeerarka iyo sharciyada ku saleysan horumarinta haweenka ee horyaalla Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay haweenka labada aqal ee baarlamaanka dadaalka ay ku bixinayaan xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee haweenka Soomaaliyeed iyagoona kaalin muhiim ah ka qaadanaya qorshayaasha qaran ee dib u dhis. Maanta waxaan kulan la yeelanay anaga oo ka kooban gabdhaha labada kokis ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare iyo gabdho ka socda civil society-ga iyo la taliyaha wasaaradda dastuurka. Waxaan la kulanay madaxweynaha waxaan uga warbixinaynay shirweynihii saddexaad ee baarlamaanka gabdhaha baarlamaanka sanad walba la qabto oo ka soo qayb galaan gabdhaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya labadiisa gole iyo gabdhaha baarlamaanka dowlad goboleedyada ee xubnaha ka dowladda federaalka iyo gabdhaha u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada iyo xubno kale oo ayagana ka socday hay'adaha caalamiga ah ee kaalmeeya dowladda Soomaaliya. Waxaan warbixinta ka bacdi shirweynihii sidoo noogu soo dhamaaday iyo sidii waxyaabihii ka soo baxay markaan madaxweynaha uga warbixinay. Waxa kaloo aan ayadana qodobka labaad noo ahayd qoondada haweenka sidii loo xaqiijin lahaa oo ah 30% iyo wixii ka badan oo aan maadaama madaxweynuhu uu yahay madaxii dalka ugu sareeyay in qoondada haweenka la xaqiijiyo si aanay gadaal uga noqonin 30% iyo wixii ka badan inaysan gadaal uga dhicin oo hadda aan ku fadhino baarlamaanka 24% aan ku joogno inaan madaxweynaha xoog saara sidii aan qoondadaas ku heli lahayn gabdhuhu ay ku heli lahaayeen. ayadana kulankanagi wuxuu noogu dhamaaday si guul iyo farxad leh. madaxweynaha si aad iyo aad u qiimo badan buu noo soo dhaweeyay, si aad iyo aad u sharaf badan wuxuu sharaf iyo mugleena wuxuu noogu xaqiijiyay inaan gabdhaha qoondadooda aysan gadaal uga dhacaynin hadda inta ay tahay 30% iyo wixii ka badan ay heli doonaan oo ah xuquuqdooda. Dhinaca sharciga waxaan isla soo qaadnay waxa ayaamahan dambe dalka dhibaato ku hayo wax la yiraahdo kufsi. Marka arintaas ayada ka dagaalankeeda sharci ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay soo keentay Golaha Shacabka ayaa jiray oo Golaha Wasiiradu ay soo baasgareeyeen. marka isla sharcigaas waxaan rabnay in asagana xoog la saaro oo maaragtay si lagu xakameeyo. guud ahaan kulankeenu wuxuu ahaa kulan runtii guuleed oo lagu guuleystay. waan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sidii qiimaha lahayd uu noo soo dhaweeyay iyo sida uu noola qaatay wixii aan wadanaba.